kulanti wacan wanaagsan aqyaari ku soo dhawaada sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa hadlaynta ah suuqa kaliibsiga ciyaartoyda gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona Josep Maria ayaa dhammaan ka raaligeliyay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona xasuuqii xooganaa ay kala soo kulmeen kooxda kubadda cagta Bayern Munich tartan koryaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League hadalkan uu jeediyay gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona Josep Maria xalay saqdi dhexe ayuu markaa uu tilmaamay in cilado aad u fara badan uu ka dareemay ciyaarta dhexdeeda waxaana xilligan uu sheegay in isbedel xoogan oo ay ka rajeynayaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona uu sameyn doono waxaana kooxda kubadda cagta Barcelona ay rajeynaysaa inay iska fasaxi doonto dhowr ciyaartoy kooxda ka tisana xaqiiqdii waa dhacda aad u xun inta badanna taageerayaashan waan dareemeynaa xasuuqaasi inaysan marnaba iloobi karin waxaan ku guda jirnaa inaynu saxno xaqiiqooyinkii aan kala kulnay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich tani waxay inoo tahay tusaale waxaana wax weyn ka baranay qaab ciyaareedka kooxda kubadda cagta Bayern Munich waan ugu mahadcelinayaa ciyaarta wanaagsan ay soo bandhigeen ayaa laga soo xiganayaa gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Josep Maria oo markaa aad u amaanay dadaalkii firfircoonida ay sameeyeen ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ciyaareenka amaahda kula jooga kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee Barasic ayaana markaa la filayaa marka uu soo gabagabo tartan koryaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League inuu dib ugu laaban doono kooxda Inter Milan maadaama aysan muuqanaynin ilo ku aadan in kooxda Bayern Munich ay doonayso heshiis joogto ah inay ciyaaraankaasi markaa la saxiixdaan xidigan ayaa qayb ka ahaa kooxda kubadda cagta Bayern Munich kulan ciyaareedkii 8-2 ay kaga adkaadeen kooxda Barcelona Barasic ayaa markaa la leeyahay fursad xooggan ay u tahay in Antonio Conte ciyaaraankan uu dib ugu celiyo kooxda Inter Milan maxaa yeelay waa laacib si weyn looga faa'iideysan kara waana xidiga position muhiim ah oo ka ciyaarsin kara tobraha kooxda kubadda cagta Inter Milan Antonio Conte hadalhayntii ugu dambeysay ee laacibkan Barasic ayaa xidigan waqti kan xaadirka loo gacanatiniyo horyaalka wadankaasi Ingiriiska ee Premier League kooxda kubadda cagta Chelsea waxay u dhaqaaqaysaa xidiga qadka dhexe kooxda West Ham United ee Douglas Rice laacibkan ayaana markaa loo arkayaa mudnaanta koowaad ee kooxda kubadda cagta Chelsea ciiraankani ayaa lagu qiimeynaya ku dhawaad 80 milyan oo lacagta Giniga balse Chelsea ayaa markaa u soo bandhigaysa kooxda kubadda cagta West Ham United labada ciyaaryahan ee kala Batshuayi iyo Ross Barkley waxaana kooxda kubadda cagta West Ham United ba ay diidan tahay inay markaa samayso heshiis isku bedelasho ku aadan in Batshuayi iyo Ross Barkley midkood ay la wareegaan si ay gacantooda kaga bixiyaan ciyaaraankooda qadka dhexe ee Douglas Rice oo lagu qiimeynaya aduunan 80 milyan tobraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard ayaana markaa xusaya in waqtiga kan xaadirka kooxda kubadda cagta Chelsea culays xoogan ba ay saari doonto dalabka ciyaaraankaasi Douglas Rice waxaana uu arkayaa in ciyaartoyda uu doonayo inuu la soo wareego xil ciyaareedkan uu qayb muhiim u ka yahay ciyaaraankaasi Douglas Rice waana rajada ugu weyn maadaama ilaa iyo hadda West Ham United aysan aqbalin labada ciyaaryahan Chelsea ay soo bandhigtay Batshuayi iyo Ross Barkley tobabarihii hore kooxda kubadda cagta Tottenham Pochettino ayaana markaa la xusaya inuu ku dhawaan karo hogaanka kooxda kubadda cagta Barcelona gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona Josep Maria ayay saaxiibo dhow yihiin macalinka hore kooxda kubadda cagta Tottenham macallin Pochettino sidaas darteeda qaar ka mid ah warbaahinta wadankaasi Isbaanishka ayaa saaka si weyn u hadlaysa arrimaha la filan karo ee Pochettino inuu noqdo tobaraha cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona xil ciyaareedka soo socda macallin Pochettino ayaa tan iyo bishii November xilligii shaqada laga eriyay ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur uusan qabanin waxaa la filayaa in kooxda kubadda cagta Barcelona ay doorka ugu muhiimsan macallinimo ay ka dhigtaan tobabarihii hore ee Tottenham macallin Pochettino sheekadani ayaana markaa la xusaya in Pochettino ay dhici karto inuu aqbalo qabashada tobabarnimo ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona go'aanadii ka soo baxay maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa markaa lagu cadeynaya inuu ka mid yahay shanta macallin ee musharaxiintu ah kooxda kubadda cagta Barcelona inay qabtaan hogaanka kooxda Barca waana isbedelada ugu weyn ee waqtiga kan xaadirka iyadoo go'aanka ugu dambeeya laga sugi doono maamulka kooxda kubadda cagta ee Barcelona inay ku dhawaaqaan macalinka ay doonayaan xil ciyaareedka soo socda inuu hogaamiyo mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Barcelona inta badan waxa loo badinayaa inuu yahay tobabarihii hore ee kooxda Tottenham Hotspur ee macallin Pochettino dhinaca kalena kooxda ku ciyaartay Stadio Old Trafford ee Manchester United ayaa waxay baadigoobaysaa xidiga Saul waxaana inta badan la xusayaa in ciyaaraanka ay dhici karto inuu ka soo dhaqaaqo magaalada Madrid ee wadankaasi Isbaanishka Manchester United ciyaaraankan ay qadka dhexe ee wadankaasi Isbaanishka ee Saul ayaa u ballan qaadaysa in toddobaadkii loo gacan gelin doono adduun cageed gaaraya 150 kun waxaana la xusayaa tobaraha kooxda kubadda cagta Manchester United macallin Oli ayaana markaa sheegaya fursad weyn inay u tahay in kooxda kubadda cagta Manchester United ay waqtiga kan xaadirka markaa u dhaqaaqayso waxaana arintan ay soo shacbaxday kadib markii kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay ka soo hartay tartan koryaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League ololahan ayaa Manchester United waxa ay qorsheynaysaa inay markaa ka dhaweeyaan Saul in markaa u soo dejiyaan istaadiyaha Old Trafford
tobaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ee Mikel Arteta ayaa dhinaca kale waxa uu aaminsan yahay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan Arsenal gacanta ku soo dhigi doonto xidiga Thomas Partey ee Atletico qadka dhexe kaga ciyaaraya kadib saxiixii dhawaan ay la sameeyeen ciiraankii hore kooxda Chelsea ee Willian. Arteta muhiimadeedu waxay tahay oo kaliya inaan markaa helno xidigaasi Thomas Partey, waxaana rajeynayaa inay soo gabagaboobi doonto qorshaha ciiraankaasi maxaa yeelay xidigu wuxuu ii sheegay inuu aad u xiiseynayo kooxda kubadda cagta Arsenal. waxaan aad u jeclahay awoodda ku jirta ciiraankaasi Thomas Partey, waa xidig waqtiga kan xaadirka ee kooxda kubadda cagta Arsenal u baahan tahay. xilli ciyaareedka cusub ee 2020-2021 waxaan doonayaa in Thomas Partey uu ka mid noqdo ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Arsenal. Arteta ayaana markaa rajeynaya inay dhameystiraan heshiiskooda ku aadanaa ciiraankaasi Thomas Partey, ayadoo sidoo kalena Arsenal suuqa ay ugu jirto dhowr xidiga kale ee muhiim u ah waqtiga kan xaadirka. qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa qaba fikir ahaan in Liverpool waqtiga kan xaadirka ay u dhaqaaqdo difaaca kooxda Napoli ee Koulibaly. لاعبكani ayaana saddexdii bilood ugu dambeysay hadalayntiisu ay aad ugu baaxaysaa kooxaha aadka ugu xifaaltamaya horyaalka wadankaasi Ingiriiska ee Koulibaly ayaana markaa la xusayaa in natiijo xooggan bay u tahay inuu ka soo hawbadisho seerada wadankaasi Talyaaniga. waxaana la xusayaa in kooxda kubadda cagta Liverpool ay noqon karto kooxda ugu difaaca adaga maadaama waqtiga kan xaadirka ay gacanta ku hayaan ciiraanka u dhashay wadankaasi Holland ee Feindaga kaliya waxa ka maqan xidig ay la barbar ciyaarsiin karaan sida xidiga reer Afrika ee Koulibaly, balse laacibkan ayaana markaa lagu qiimeynaya dulcageed gaaraya 90 milyan. ciiraankani Koulibaly ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay waxa darbiye ka gudbinaya sida Manchester City, Chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee Man United. waxaana tobaraha kooxda kubadda cagta Liverpool Jurgen Klopp uu leeyahay waxaan sameyn doonaa dadaal aad u fara badan, balse Liverpool ayaa ka fiirsanaysa dalabka difaaca ka tirsan kooxda kubadda cagta Napoli ee Koulibaly. 22 jirka ka tirsan kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen Kai Havertz ayaana markaa ku dhawaaqaya in muhiimadiisu ay tahay u dhaqaaqista gegida Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta Chelsea. xidigan ayaa waqtiga kan xaadirka lagu qiimeynaya dulcageed gaaraya 100 milyan, balse Chelsea waa ay ka gaabsatay lacagaasi faraha badan waxaana ay xuseen inaysan awoodi karin. dhowr ciyaartooy ayaa kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen markaa loo bandhigay. haddaba madaxa isboortiga kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen ayaana markaa xusaya inaysan suurtagal noqon karin ciiraankaasi qiimo jaban inuu ugu safro kooxda kubadda cagta Chelsea xilli ciyaareedkani. tobaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard ayaa hore u soo bandhigay dulcageed gaaraya 70 milyan oo lacagta Giniga, waxaana loo arkayaa xidigan u dhashay wadankaasi Germany ee Kai Havertz in mudnaanta koowaad uu siinayo tobaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard xilli ciyaareedkani. ciiraanka kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa meesha ka saaray hadalaynta ku aadan in ciiraanku dib ugu laaban doono horyaalka La Liga wadankaasi Isbaanishka, gaar ahaan kooxdii aadka ugu xifaaltamayeen horyaalkaasi Barcelona. la sheegay in ciiraankaasi loo soo bandhigi doono. 33 jirkan u dhashay wadankaasi Portugiiska Cristiano Ronaldo waxa uu leeyahay xaqiiqdii waxaan ku faraxsanahay mustaqbalka kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus, waxaan haystaa heshiis gaaraya tan iyo sanadka 2022. waxaan jeclahay inaan ku sii sugnaado istaadiga kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus. Ronaldo ayaana markaa sheegay in kooxda kaliya uu xiiseynaya ay tahay kooxda Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka Ligue 1 wadankaasi Faransiiska, ayadoona warbaahinada qaar ba ay xusiyeen in Ronaldo uu jecel yahay inuu ka garab ciyaaro sida xidigaha Kylian Mbappe iyo Neymar Jr. balse waxa uu dharbaaxyo kulul ku dhuftay hadalhayntii ku aadneed in Juventus ay Barcelona u bandhigaysa Cristiano Ronaldo inay gacanta ku soo dhigaan maxaa yeelay waa koox muddo aad u fara badan aad u la xifaaltamaya horyaalka La Liga wadankaasi Isbaanishka. kama fikirayo mustaqbalkayga kaliya weli waxaan ahaa ciyaaryahan aad ugu faraxsan kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ee horyaalka wadankaasi Talyaaniga. waxaan isku dayi doonaa in aan si weyn ula shaqeyn doono tobaraha cusub ee kooxdaasi Andrea Pirlo. kooxda kubadda cagta Inter Milan ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga ayaa mar kale ku dhawaaqaysa in muhiimad gaar ay u arkaan saxiixa ku aadan ciiraanka kooxda kubadda cagta ee Chelsea N'Golo Kante. لاعبكani u dhashay wadankaasi Faransiiska ayaana markaa la xusayaa in kooxda kubadda cagta Chelsea fasaxi doonto xilli ciyaareedkani haddii ay ku helaan qiimaha ay ku baadigoobayaan wiilka reer Faransa N'Golo Kante inay markaa kaga diraan gegida Stamford Bridge. tobaraha kooxda kubadda cagta Inter Milan Antonio Conte ayaana markaa mudnaanta koowaad ah siinaya ciiraankani N'Golo Kante, waxaana uu xusayaa in fursad xooggan ay u tahay maxaa yeelay waa ciyaaryahan aan aad u jeclahay qaab ciyaareedkiisa waa xidig aan doonayo inaan ku buuxiyo qaybta qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Inter Milan. Gazzetta dello Sport ee dalkaas Talyaaniga ayaa markaa shaacinaysa in Inter muhiimad gaar ah u aragto ciiraankani inay markaa ka dulqaato kooxaha aadka u baadigoobaya sida Paris Saint-Germain iyo kooxda Inter Miami. horta waxaan mar kastaba waa tartankan wuxuu u baahan yahay juhdi badan iyo dadaal in la soo geliyo ka koox ahaan dekada waxaan moodaa anaa waqti badan waxaan u soo dagaalameynay xoogaa yar inkastoo maanta ayna saameysay roobkan da'ay oo keena cilado badan kabaha garoonka lagu dheeli karo waa goomo waay kaba wuxuu u baahan yahay ganagane dad aani ay ka koow ay laguma ordi karo sababtoo
kan kuu qabanaysa ma jirto marka ciladahaas oo iska jireen waa la ogyahay farqiga inoo dhexeeya labada koox inuu ahay farqi kala duwan waxaa moodaa wax yar inuu maxaa ahaato lisdaba socday mana aan istaahilin balse alxamdulillah ugu dambeyn gacanteenu way soo gashay inkastoo qaladaad badan dhexdeena ka dhacay wax weyn oo kaga duunaa male keliya wuxuu kaga duunaa in MCC oo hadda ku cusub saaxadda kubadda koleyga ee imaatay kama dambaysta dadaal badan ee sameeyay ciyaartooy badan oo kooxda dekedaha ku jirta ilaa 4-5 qof oo dekedaha alxamdulillah waxaa moodaa uun dadaalkooda inay isku khasaarna meel fiican ku soo istaageen hadda ka hadlo kulan galabta adheelna waxaa waaye kulan aad u qiimo badan oo ahay oo la sugayay oo wax badan aad sugeen wax badan u train gareynayna oo lagu soo gabagabeynayay kulanka ciyaarta ugu dambaysa ee basketball Soomaaliya dadaalkeena iyo wax walba juhdi markaa bixinay ciyaarta wax badan aan soo bandhignay sida aragteen gameka wixii daawanayseen ama qaatika nasiib wanaag ciyaarta warar badan ay joogsatay oo roob daay haddana waa ku ciyaarnay roob kala daa waa ku ciyaarnay dan nasiib wanaag error iyo federation ka dhinacooda ka dhacay ciyaarta waxay ku dhamaatay in anaga oo qalad ay refereeyaasha sameeyeen darteed in anaga lagu sameeyo kadibna ciyaarta ayadoo sakiman ka dhiman tahay teamka managementiga ee go'aan ku gaareen in anaga aan dheelin qaladkan lagu sameeyo awgis ciyaartan waxay ku dhamaatay anaga oo gameka u socdo oo dhamaanin ciyaarta go'aan ay gaareen federationka dan saasi ku dhamaatay laakiin anaga maanta hadda ma lagu badin maanta ciyaarta ayadoo dhamaatay gameka ka baxnay ma lagu badin ciyaarta waxay ku dhamaatay ayadoo daqiiqada time dhiman yahay dan timeka federationka qalad sameeyeen teamka managementiga macallimiinta kadib go'aankooda ay noqotay in oo qaladka la sameeyay hadaan la sixin inaan la dheelin taas awgeeda garoonka ugu baxnay anaga mar walba waxaan diyaar u haynaa dheelno waxa u dheelin reasonka u dheelin waxay ahayd in Soomaali basketballkooda qurxino oo dad fiican ciyaartooy fiican ee soo baxaan competitionka waxa aanay dibadda ugu maana inta ugu dheelin waxay ahayd in Browniga qurxino then nasiib wanaag meesan dhicin sida rabnay ciyaartan meesan dhamaan anti sanadkan aan ku guuleysano koobka ku rajaweyneen waxaan marka hore dhammaan taageerayaasha ka soo qayb galay faraha badnaay ugu mahadcelinahay sida quruxda badan uu soo qayb galay ciyaarta waxaana kaga tacsiideenayaa in ciyaarta sidee u rabeen aysan u dhamaanin inkastoo minishibiyo sanadkan horyaalka ay ku xisbeed mana laga rabin in ay waxaan ay sameeyaan runtii kubadda koleyga waa dulqaad iyo adkaysi aniga Janaal Daawudki hadda ugu dambeeyay waxaan ku qaadnay waa adkaysi dulqaad anaga naga horeeyaa oo ciyaarta dhamaarta aan recovery soo sameynay taasina waxay ku tusaysaa in yani kubadda ay tahay khibrad iyo adkaysi waana ku faraxsanahay inaan koobka aan ku guuleysan waa gartay qaladka MCC garoonka ay ku baxday sax ma aha mase qalad runtii waxaan waa kubadda koley ciyaartana garsoorayaasha mar walba waxa awood leh garsoorayaasha ciyaartana garsoorayaasha labada garsoor dhexdhexaadinay ciyaarta sidaad u jeedeen kubadda anaa buundeeyay nin kubadda iska soo dheeray ahay waa ka buundeeyay asoonan foul la gelin ciyaartu way cadeed taageerayaasha marxaati ka yihiin kubad aanan foul aan buundeeyay saaxiibkay Abdul James dafay oo dhaliyay MCC-na waa runtii waa dareemi kartaa koox markay kubadda kale ku cusub tahay ay adkaysi leh runtii waxay ku marsiyo mawaanayso walaalay waxaan leeyahay kubadda waa dulqaad waa ixtiraam waa xishmad waxaan rajaynayaa insha Allah khaladkii aad maanta aad samaysay in aad karaali gelin doontaan boqolaalka qof kumanaanka qof ee ciyaarta ka soo qayb galay waan ku kalsoonahay gudoomiyaha naadiga MCC iyo dhammaan ciyaartooyda MCC inay yihiin dad wanaagsan kastoo xamaasad ciyaarta ay ka tanbadisay waxaan leeyahay walaalay insha Allah dadaal sameeya dadaalaha wuu gaaraa mar walbana insha Allah waa kubadda waa horumaraysaa saamal ahaanayo waxaan leeyahay waa mahadsantihiin kulanka galabta guusha dekedda wax weyn oo nooga dhigan yahay waxaad ogtahay horyaalka dekedaha kubadda koleyga inay ugu dambeysay 2012 aan qaadnay 2019 macno weyn ayuu nooga dhigan yahay marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa taageerayaasha naadiga dekedaha juhdiga weyn ay geliyeen kooxda la'aantoodna guul ma imaalahayn waxaan aad ugu hambalyeynaa taageerayaasha naadiga dekedaha ciyaartooyda macallimiinta iyo inta bahda sportska ee naadiga dekedaha taageersan